jiif caaqil cali jaamac buureed oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada xariirada ee gobolka Salel ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka soo kale mar wax laga weydiiyay jiif caaqil cali jaamac buureed waxyaabaha xukuumadda Soomaaliland ay ka qabatay gobolka Salel muddada uu joogo madaxweyne Biixi ayaa waxa uu jiif caaqil cali jaamac sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay hagratay gobolka Salel marka laga eego dhinacyada adeegyada bulshada caafimaadka wadooyinka iyo adeegyada horumarinta aasaasiga ah ee bulshada soo kale waxa uu caaqilku sheegay in saamiga kuraasta xukuumadda Soomaaliland ay ka qatan yihiin shacabka ku dhaqan gobolka Salel waxaana jiif caaqilka warbaahinta kula hadlay magaalada xariirad kamid ah hadaladiisii madaxweynihii u horeeyay horta waxa la wasiir iyo wasiir ku xigeenno iyo agaasimaba waa la tii ka dambaysay daahir rayaaliya marka la soo gaadhana haba yaraatay iyadana waxa la hayn wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo agaasimo uu joogay laakiin wixii ka dambeeya ilaa siiraayo tii siiraayaba tan siiraanto iyadana wasiir iyo agaasimo lahayn taniyada waa kii uu hal xabo un baa taagan marka hadda 9 shaandheyn hadduu sameeyo inta uu sameeyo haba yaraatee waxa naga kordhina ma jirto talabaad iska daa isbitaalkii xariirad maanta ee qurba joogtu noo dhistay haba yaraatee wax qalab oo yaala ma jirto talabaad wax caafimaad oo dhaqaatiir oo caafimaad doctor rawl la keenay ma jirto haba yaraatee waxana waan ka qabnay reerkan hadii halkii u roon yaa loo digay rogaya reer meeshii reerka ay dan moodo ayuu reerkan ku dhaqan dan moodo kolku malaha rugo ee doorashada kolkeedana waa la arki doona shaaca laga qaaday ilaahay haduu yiraahdo maadaama in badan waan sameyn reerka waxaan naana wariyaa ugu dulqaadba ma hadalno haba yaraatee waxaan noo ma wereerino dadka aflagaadaya manin dad waxaan war waxaas iga maqanaysi ma nidhaano waan eegnay sugnay deexadeed in reerka halkii u dana aan ugu malayno ayuu waajibkayagu yahay waxaan kaloon ku weydiinayaa waxa bariyahan dhawaanahan dambe madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu soo maray socdaal ku soo maray gobolada galbeedka Soomaaliland waxa darkaysay socdaalkaas oo bulshada gobolka Salel iyo dadweynaheega iyo cuqaasha wax kale aad loogu soo dhaweeyay saluugaas adiga ku muuqda cuqaasha ama dadka deegaanka iyagu uma muuqda miya anigu taa xagga fikir ahaanteeda ama dadku deesan lu waxda wuxuu u baqay uu maray una bas uu maray kala tan wax yaroon ka qoray waxa jirta lacagtii la yacado aw meesha xuduudii xidhnay intaas baan ka qoray qofku deyntiisana sheeg baa la yiraahdaa anigu intaas waxaan ahayn oo gobolka Salel anu ma arkin u magacaabay ama waan siinayaa ugu dambeyn su'aasha ugu dambeysay ku weydiinay waxay tahay waxaad kamid tahay duubabka dhaqanka ama cuqaasha dhaqanka ee gobolada galbeedka Soomaaliland su'aasha ugu dambeysay ee dadka shacabka gobolka Salel aad oranaysaa muxuu yahay gobolka Salel waxaan gaar ahaan ugu baaqayaa gobolka Salel waa reer ku hadii halkii u dana ee dan moodaan ayuu reerkan hadii u diga roganayaan hana loo diyaar garoobo saasaan dadweynaha u sheegaya shacabka gobolka Salel ka soo jeedo maadaama isku shaandhayn kasta goor kasta hadii la sameeyo oo waxba lagu soo daray oo wasiirkii hore ee waxba gaaskamayaan wasiirka ku xigeenno haba yaraatee waxba hayna jirin qalinkii Muuse Biixi haduu naqabanay wax qalinkiiba naba qabanayo lalaha sahlay marka maadaama haduu qalinkiiba naqabanay reerka halkii u khayra yaadita lagu geediyay sidaan dawladdu anagu ogaad si kastaba ahaatee maaha markii ugu horeysay ee dadka deegaanku ay ka cawdaan qalinka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo isu shaandhayntiisa waxayna dadka deegaanku intooda badan ay sheegaan in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aanay saami ballaaran ku lahayn saasi daraadeedna jiif caaqil cali jaamac buureed oo kamid ah cuqaasha waaweyn ee gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxa uu hadalkiisa ku soo murtiyay in ay jiraan xogo hoose ama talooyin hoose oo dadka deegaankani ka tashanayaan meeshii masiirka ummadooda ay dhigi lahaayeen waa Cabdi Majiid Ibraahim Muumin telefishanka caalamiga ee Ariel magaalada xariirada ee gobolka Salel